kol haddii uu talada beel ahaan noo diiday muxuu noogu diiday inaan sawir la galno? assalaamu calaykum daawadayaal, kuna soo dhawaada wararka dhambaalka wararka qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya muran xooggan oo ka dhashay shirkii magaalada muqdisho ee madaxdii hore iyo sidoo kale xasan sheekh maxamuud, maqnaanshaha ra-iisul wasaare xamse cabdi barre, kusimo madaxweyne iyo sidoo kale guddoomiye baarlamaan oo muqdisho ku sugan ayaa buuq cirka ku shareeray dood xasaasi ah ayaana arrintaasi ka qaraxday. ACC waxay ku dhawaaqday inay maanta ka takhalustay mid ka mid a gaadiidka dagaalka ee ciidanka militariga Somaliland. Fariisimana waxay ku dhawaaqday inay qabsatay. Waxaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale Muuse Biixi oo jawaab degdeg ah ka bixiyay kolayadii ciidanka warsangelay ee soo galay magaalada Laascaanood iyo cutubka ciidanka ah ee ku soo ruqaansaday magaaladaas iyo halka ay ka yimaadeen gaadiidka nooc ay wateenna waa la bedelay. waxaa sidoo kale warkeena qayb ka noqonaya wararkii ugu dambeeyey shirarka ka socda magaalada muqdisho iyo sidoo kale arrinta la xiriirta fariinta degdega ee ka timid ACC dhinaceeda, garaadadii oo dib ugu laabtay Laascaanood, muduqeyntii iyo sidoo kale garaadadu sida ayay markaan u kala badbaadi doonaan. Halkan ayaan xog idinkugu hayna laga soo xigtay saraakiisha labada dhinac. muuqaalka shirgara qaybta hoosena aragtida noogu reeb haddii markii kugu horeysa ay taana dhambaalka wararka falow saar si aad mar walba halkan nagula socoteed oo aragtidaada noogu soo gudbiseed. ana ku bilowna marka hore dhinaca iyo ACC wararkii ugu dambeeyey aan laga helayo magaaladaasi Laascaanood ayaa tilmaamaya in xoogagii ACC ay ka takhaluseen goor dhoweed mid ka mid a gaadiidka dagaalka ee ciidanka militariga Somaliland, iyagoo weliba xaqiijiyey in gaarigaas xilligaas uu ku jiray howlgalkiisa caadiga islamarkaana uu iskaga gudbayay difaacyada ay leeyihiin ciidanka militariga Somaliland ee bariga Laascaanood. waxaa xilligaasi gaarigu uu ahaa mid socdaal ku jira qoraxda oo sii gaabanaysa, ayay rajeynayeen ama filayeen in aan qoraxa ama gabalka hoostiisa wax looga jeedi karin, maadaama indhaha biniaadamku ay aragtidoodu gaabato marka qoraxdu ay dhinaca galbeed u wareegto hoosteedana wax laga eegayo. balse taasi waxa ay suurto gelisay in gaarigu uu dhirta iyo sidoo kale meelihii ay gaadiidku ku dhuumanayeen ama ay kaga gambanayeen madaafiicda labada dhinac ay isweydaarsanayeen ayuu ka soo baxay meel dalcada xilli uu marayo, islamarkaana dhirgaab ah ayuu madfaca la helay mid ka mid a kaaraystayaasha ciidanka ACC sida ay noo xaqiijiyeen saraakiisha ku sugan jiidda hore ah gamreega. duqeyntan ayaa waxay ahayd mid labada dhinac ay isweydaarsanayeen saacado iyo daqiiqado badan, balse ugu dambeyntii taasi waxay sababtay in uu gubto gaariga nuuca dagaalka ee ay wateen militariga Somaliland, kaas oo ugu dambeyntii ay la tagtay madfac ama culus oo ay ku dhibteen ciidankaasi. xoogga ACC waxay sheegeen in gaariga nuuca dagaalka ay gubeen, sidoo kale ay dushiisa saarnaayeen 4 askari kuwaas oo sida ay sheegeen ku basbeelay maadaama goobtu ay ahayd meel aynan sidaasi ciidamadu kaga dhoween, islamarkaana ay ka socotay madaafiic culus oo isweydaarsanayeen labada dhinac. si degdega ayaa qoriga ku xirnaa ee dhashiikaha looga furay gaarigaasi, waxauna ahaa gaari u samaysan sida ay qoryaha ugu rakibaan xoogagii ACC gawaaridooda, iyadoo weliba ay wararkaanu helayna ay xaqiijinayaan in gaarigaasi uu halkaasi ku gubtay. dhinaca kale markii laga soo tago sheegasada ACC waxa ay sheegeen in goobta oo ahayd aagga maraaga ay ku durkeen ciidankooda, islamarkaana ay dib kaga gurteen ciidanka militariga Somaliland. saraakiisha aaggaasi ku sugan oo u badan qaybta 7aad oo aanu xiriir la sameynay ama guutada 7aad ayaa waxa ay sheegeen in haba yaraatee aynan jirinin gaadiid laga gubay iyo sidoo kale goob looga soo dhowaaday, iyagoo sheegay in xoogagga militarigu ay ku jiraan waajibaadkooda islamarkaana ay sugayaan oo kaliya amarada la xiriira bilowga howlgalka loogu magacdaray soo xiridda xuduudaha Somaliland, kaasoo sida ay sheeganayaan la qorsheeyey in uu socdo muddo 48 saacadood oo kaliya ah. ma la oga xogta dhabta ah ee ku aadan labada dhinac duqeymaha ay isweydaarsanayaan, in khasaare uu ka dhashay oo xitaa gaadiid dagaal uu ku gubtay iyo in kale, maadaama labada ciidan mid walba hiba uu sheegayo warar la xiriira sheegashooyin khasaare inuu gaarsiiyo dhinaca kale ah oo aan la xaqiijin karin run ahaanshahooda. dhinaca kale markaan eegnana, Somaliland ayaa waxay jawaab degdega ay ka bixisay gaadiidkii beesha warsangeliya ee u soo ruqaansaday dhinaca magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. sarkaal ka tirsan
qaybta 12aad ee militariga Somaliland oo daqiiqado ka hor aanu xiriir la sameynay ayaa xaqiijiyay in ay ugu yaraan keeneen kolayo gaadiida oo ku laba jibaaranta mid ay soo direen ciidanka Warsangeli iyo sidoo kale beelaha kale ee dhinaca Puntland iyo Sanaag xiga. waxayna sheegeen in kolayadan ay ku rakiban yihiin gaadiidka dagaalkana ay yihiin ka markii hore gurmadyadu ay ahaayeen kuwo lagu soo daabulo gaadiidka waaweyn ee xamuulka u qaada ciidamada. hadda waxaa si toosa gurmadyada imaanaya ay u noqonayaan gaadiid gaashaaman oo laga soo taxadiray islamarkaana ay ku rakiban yihiin qoryahoodii iyo sidoo kale guud ahaan hubkoodii. salbaba ha ahaatee arrintan ayaa ah mid ku cusub islamarkaana waxay Somaliland u muuqataa inay laba jibaarayso ciidankeeda gurmadyada ku imaanaya mar haddii la joogo waqti kama dambaysa oo adag islamarkaana u baahan in la qaado howlgal toos ah oo lagu qabsanayo meelo kala duwan oo ka tirsan aagga magaalada Laascaanood. gaadiidka soo gala ayayna sheegeen in ugu yaraan uu gaarayo 15 gaari oo nooca dagaalka. dood xooggan iyo muran ayaa ka qarxay sababta madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu kaga tegay siyaasiyiin dhowr ah oo xilal sarsare dalka ka soo qabtay oo iskugu jira guddoomiye baarlamaan kusimo madaxweyne xilli xitaa xaaladdu ay ahayd mid adag oo aan la dhayalsan karin. waxaa cirkaas ku shareeray sidoo kale buuq weyn oo ka dhashay sababta ra'iisul wasaare xamse cabdi barre looga reebay ka qaybgalka shirka golaha wadatashiga ah ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa shirka golaha wadatashiga qaran waxa uu unan ku soo darin oo unan ka qaybgelinin ra'iisul wasaare xamse cabdi barre iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale. xubnaha shirkaasi ka qaybgalay waxaa ka mid ahaa ra'iisul wasaarayaashii hore ee Soomaaliya xasan cali kheyre, cumar cabdirashiid cali sharmaake, cabdiweli maxamed cali gaas iyo sidoo kale ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya cali maxamed geedi iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale. waxaa goobjoog ahaa xubno murashaxiintii midowga ahayd ka tirsan balse aan xil dalka ka soo qaban xildhibaanbaha ugu yaraadee, kuwaas oo lagu soo daray shirka golaha islamarkaana ka soo dhex muuqday halka laga reebay guddoomiye baarlamaan maxamed cumar dalxa iyo sidoo kale jeylaani nuur ikar oo labaduba soo noqday kusimo madaxweyne. guddoomiye baarlamaan waxay ku sugan yihiin magaalada muqdisho, waxaana arrintaasi ay muujisay in shirku u muuqdo mid laba kooxood oo kaliya ay shirayaan. inkastoo lagu martiqaaday guddoomiyihii hore ee golaha shacabka sheekh maxamed waa guddoomiyihii hore ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari iyo sidoo kale maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo labaduba ka qayb galay shirkaasi, iyadoo weliba arrintaasi ay muujisay sidoo kale in madaxweyne xasan uunan u cadaalad falin shirkan iyo ka qaybgalkiisa. waa sida ay ku doodayaan dadka dhaliishan shirkan oo ku tilmaameen inuu yahay mid guud ahaanba xuquuq badan oo beeleedu ka muuqdo. dhanka kale ra'iisul wasaare xamse cabdi barre ayaan shirkan ka qaybgelin islamarkaana waxa uu ahaa mid bannaanka ka jooga. waxaa arrintaasi dood adag ka keenay beesha uu ka soo jeeday ra'iisul wasaaruhu, gaar ahaan kuwa degadeganada Puntland iyo sidoo kale Galmudug iyo Jubbaland qaybo ka mid a. waxayna ku tilmaantay beeshu in ra'iisul wasaare xamse cabdi barre shaqadiisii guud ahaanba lagala wareegay. mar haddii siyaasaddii iyo sidoo kale ka qaybgalkii aad noo diiday shirka, maxaad noogu diiday in aan sawir kula galno oo aan ka soo dhex muuqanno, ayuu yidhi sarkaal sare oo ka mid ah siyaasiyiinta wax dhaliishan, kaas oo muujiyey in madaxweyne xasan mar haddii ra'iisul wasaaraha uu shaqadii kala wareegay ay ahayd in uu xitaa u ogolaado inuu ka soo dhex muuqdo si ay u yaraadaan su-aalaha badan ee bulshada kaga imaanaya. qodobada miiska saaran ee shirka looga hadlayo waa dhammaantood kuwa quseeya xukuumadda federaalka ama golaha fulinta ee dalka, waxaana hormuud u noqon lahaa shaqadaasi ra'iisul wasaare xamse cabdi barre, iyadoo weliba arrimaha laga hadlaya ay ka mid yihiin doorashada iyo sidoo kale hogaaminteeda, fulinta heshiiskii golaha wadatashiga qaran iyo sidoo kale arrimaha ay ka mid yihiin toosinta iyo turxaan bixinta dastuurka ku-meelgaarka ee dalka iyo arrimo kale oo quseeya amniga iyo dhaqaalaha. waa dhammaan shaqo qusaysa xukuumadda ama golaha fulinta waddanka oo uu hogaamiyo ra'iisul wasaare xamse cabdi barre. arrintaasna waxay ku tilmaameen in ra'iisul wasaaraha shaqadiisii lagala hoos baxay. dad badan ayaa isweydiiyey ra'iisul wasaaruhu mas-uumka ayuu kaga qayb galay mase waa aragti mid ah oo madaxweynaha dhex taalla. si walbaba ha ahaatee waxaa dadka ku doodaya in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ra'iisul wasaaraha awooddiisa muquniyey ay heleen xigashadii ugu horreysay, islamarkaana ku aadan in arrintaasi tillaabo degdega ay tahay oo la qaaday. Puntland ayaa horey ugu tilmaantay ra'iisul wasaare xamse
in uu yahay xogayaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud kaasoo aan mudnayn in arrimaha siyaasadda iyo sidoo kale marxaladaha kala duwan ee waddanku uu ku jiro in lagala hadlo ama uu ka hadlo maadaama uu yahay gacanyaraha madaxweyne xasan sheekh maxamuud. arrintaasi waxay abuurtase fariimo adag oo ay isweydaarsadeen ra-iisul wasaare xamse cabdi bare iyo sidoo kale madaxweynaha puntland doctor siciid cabdulaahi deni, waxaana soo baxday in beesha ra-iisul wasaaruhu uu ka soo jeedo aan lala jeclaysan in ay dalka madax sare ama kursi sare ay ka qabato. gudahaan daawad intaa waxaa ku dhan warkii oo kaga imanaya dhambaalka wararka falogara bejka qaybta hoosan aragtidaada noogu reeb.